قصير بدح قرينا موضوع رسالة أخريين اللي حسن الحمص لها قرين فضيلة أم رذيلة وقصير كوبا وسوكو بيا من كاس وحوها نين عادي هو كان عصده وكشقيا مرة واحد ويمين شيء دمشق ماشي اللي هذا وقصة واقع نين كأخري قصة كشكيل دعضي هيدبور تاريخ ذو شاكتي كتابه لجيسان شر والنعامية شيخي بقى وحكشكي نين صياده وارصده أبا بيرتو بدي وحكوت وري شباكتي markaas laba kalluun ayaa galay labadii kalluun mid baa isbaqtay soo tiri waxa meed iska dhigtay tii kalena way dhaqdhaqaad markaas uu tan waa baqti uu tuuray markaas carartay midna uu soo qaato de waa cunay maalmaha kamid ah isagoo suuqii Dimashq dhex maraya oo mara waxa uu yiri mara wax haya qof door u yeedho markaas gurigii galay gudaha markuu galay waxa ku tiri xumaan adigu sabaysan mooyaane dhaqaaq meeysan ku qaynaya ninkii uu yaabay naxdin baa Ilaahay u keenay khalad buu galay gurigiisa buu galay markaas uu yiri waxa yeeshaa wuxuu xusay qisadii sheekhiisu ka sheekiyay alla waxa iska dhigtaa xabadii kalluunka is miskiimisay saad naagtan dhibkan uga baxdo iyo mashaakilkan markaas uu intaas miya diyaar baan ba xaga musqusha biyaha la iidig musqul hore waxay aan jireen marxaad baa la yiraahdo Soomaalidana way lahayn jirteedo waxay lahayd waa loox weyn oo meedhow waxa maartay wasaqdu ay ku dhacayso hadhow taa looxaas la saaraa meesh intuu galay buu wuxuu yiri alla ilaahay markuu meel ka baxa waayay naagtani nin waalan baa ku aragtay wasaqda ismari markaas intuu faraha ka shaday oo isku dhoobay buu way kan ka soo baxay meeshii war wax yar waa naga baxay tuu caydis qisadu waxay leedahay ninkaasi markuu gurigiisii tagay oo dharkiis ka bedelay oo maydhay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu bedelay cadar udayg ah markaas rajul miski loo bixiyay oo xitaa waxa kule markii la aasay xabaala oo ku aasnaa yaani xabaalihi miski ayaa la oran jiray reer Dimashq way yaqaanaan bal waxaan ka wada ninkaasi wuxuu ka faa'iideystay sheekha darsigiisa ka faa'iideystay